waxay la tahay aniga in la dagaal galo sida loo dagaal galayana waa sida tan waxa ay abuuraan dabcan waa sida tan markaan leeyahay waa general terms wuxuu leeyahay dabcan strategies iyo action plan iyo dal ku reeyo socda oo mar walba isbedelayo wax lagu darayo laakiin mainly خطوط العريضة main points waxa weeye waxaad ogtihiin waxaa la yidhaahdaa strategic principle baa jira la yidhaahdo crisis kastaa waxay abuuraan fursad khatarna waa leeyihi caawran haddaan ka soo sheekaynay in layna jabiyey in balaayo nagu dhacday inaan daasada laadnay in nala ka adkaaday see waxyiin futureka war ma saasaynu ku dhammaanaynaa mise rajaan leenahay inaanu isxoreyn karaa fursadaha abuuran oo Ethiopia ay abuurtay waxaa ka mid ah oo hadda abuuran nin ragay dardaaran u tahay doqon ha moogaatuu yiri maxaa Cabdulla Xasan oo qofkii garanaya uu garanayo fursadaha abuuran waxa weeye midnimadii Soomaaliyeed inay soo noqoto kow dagaalka Ethiopia wuxuu abuuray fursad ah in ummadda Soomaaliyeed midnimadeedii u soo noqoto danqato qabiilka iska tuurto waana fursadda ugu qaalisan weyn wax ka qaalisan ma jiraan marka inta haddaan helo for sure Ethiopia iyo America wadata iyo China iyo Afariin wata iyo waa ka adkaanayna shakiga ma jiro waxaan uga adkaanaynaa markaan cilmiyan u fikiro SWOT analysis sameeyno comparative advantage-ka Ethiopia leedahay inay Soomaaliya haysato iyo comparative advantage-ka shacbiga Soomaaliyeed uu ka leeyahay inuu iska xoreeyo marka isdinac dhigtid waxa 10 jeerna badan oo waliba significant ah yani factors crucial or significant ah iyaga keedu waa daciif annagu waa very strong marka isu miisaantid annaka ayaa comparatively more advantageous ka than Ethiopia iyadoo hadda in haysato xamal joog how qodobka koowaad Ethiopia waa 70 qowmiyadood oo isgumaysta historically amxaara gumaysan jirtay marna waxa isu switch gareyn jiray amxaaro ama Tigray hadda Tigray baa haysta Tigradu waa idin sheegay waa 2.5 million in number we are superior than them 10 times number ahaan dadka iyadu ay haysato sheegato claim garaysa ehelu ma aha wanis aad xabad ku bilowdid Ethiopia oo aad xamar meel un aad kaga adkaatid ayada xabada isku bilaabaysa marka burburka iyada ku dhameynaysa waxaan idin sheegayaa one good example baan idin sheegayaa oo comparative advantage xoolaheena maaha wax kale maaha 1000 kilometers oo Soomaaliya degan tahay buu askariga Ethiopiaanka soo maraa soo xamar u yimaado almost 1000 kilometers look laba meelood buu ka soo galaa jidka mustaxiil oo soo maraa ee dhulka Soomaaliya degan tahay ay haysato ilaa beledweyne ilaa halka ka soo gala iyo jidka Gedo iyo Boqol soo maraa dad Soomaaliya degan oo reer baadiya halkaas imagine dadkaasi geelay weeye dariiqa ay degan yihiin qoryo ay haystaan haddii inta communication fiican lala sameeyo oo language ay ku hadlaan lagu hadlo I mean levelkooda ama dhowr qof oo ay garanayaan inta reer walba loo diro oo muqaawamada saraakiil ama gabdhaha wax la mid wiilashaas reer baadiyaha ay jidka ay u galaan ma kula tahay in askari kamid ah xamar soo gaaray iyo logistic wax logistic ah raashin baan soo gaaray waxaan soo gaaraynin askari ku soo biira mid baan ka baxaynin adiga waxa target gareynaysaa maga airportkaas xamar iyo dekada Muqdisho inaan waxba ka soo digin daazid bilka bacda ama laba bilood ka bacda way isdhiibaya ama 50 kun ahaado ama 40 kun ahaado ciidanka Ethiopia ku jira xamar asi blasdat maalintii 40 kun isdhiibto iyadoo madaxa gacmaha u saareen kaamirooyinka laga soo daayana hadda sabab xabad adigu aan ka bilaaban baa ka bilaabanaysa so you have killed so you have killed one stone into 10 birds hal dhagax baa 10 shimbirood ku dishay dalkaagina waa xaraysay cadow ummada uu haysto
xoog ka dhigan jiray oo kuugu faani jiray inuu laandheero yahay gobolka isagu dawladda ugu badan yahay 70 milyan yahay waa ka tagay dhul weyn oo aad ku lahaydna ama waa xoroobahayaan ama waxaad noqonaysaan dad isku mid ah walba haydeen hal dawladda noqonaysa Ethiopia markaanu daraasad ku sameynay markaas iyaduba xaq baan u leenahay iyaduba waxa ay daraasada ku sameysay meeshaan u jilicsanay oo naga qabato oo hal meel 200 oo meelood ay u jilicsan tahay baanu soo saaray oo mid walba markii laga qabto ay fatal tahay geeri iyada u tahay this is the only example aan idin sheegayo comparative advantage another one economic inta tiirka ugu weyn aan sheegayo maqan yahay intaynu xagga u kala fadhino tan waa reer hebel tan waa kaas inta anigoo tuug ah oo Mooryaan ah ummadda Soomaaliyeed laayay qabiil la igu taageerayo la igu sacbinayo oo leeyahay Zakariye waa in adeerkay weeye marka cid lama harid karto wuxuu rabo dili karaa gabdhuhu rabo kufsan karaa cadowgu rabo dalka keeni karaa asrabish horta halka weeye meesha u socday baytil qasiid halka weeye inta hadii la yara ka helo oo Ottawa caawa aad bilowdaan oo ninka inta ka soo horjeedana iyo gabadha ka soo horjeedana la takooro salaanta aan laga qaadin la cadowsado ayadoo not on the grounds of tribalism iska jira not on the grounds of color not on the grounds of region on the grounds of mabda'a Soomaalinimada bas iyo islaamnimada haddii inta aan sameeyno waxaan idin sheegayaa waqti aan fogeyn oo aan xataa sanooyin gaarayn ama Mareykan gacan siiyo ama Sacuudi lacag siiyo inay they are already scrambling waa u jeedaanin muxuu ahaa hal xaaraan in laga xalaalo ma dhasho ali waa iska tagay in fact aniga ali baaba iyada raawaayo wuxuu ahaa 40 jir ama 50 jir aqoon-yahana oo muxuu ahaa magaalada caasimadda aad degan ka dhashay oo hadii la ku roon yahay another 20 years si hayn kara meesha marka khayr weeye mid waan filimada daawan jiray gaalkacay aan aruuraha kaaboyga ayaa atoora wuxuu dilayaa hadda mituuga markaas uu leeyahay meena un karanyo atlaaniga waa taqaanin hal doofaar baan dilay muna un karanyo marka hadda waa meena un karanyo weeye hal koroniya hartay iyadana Soomaali waa ka adkaanaysa laakiin waxa leeyahay kaga baahan yahay inta sheegay noo qabiil noo qaybsanaan midnimo Soomaalinimo dagaal xoreyn Soomaaliyeed waa maadsantii